madaxweynaha waxaan u soo jeedinaynaa haddii waxa way xisbiyadii ay noqdeen meel qaranka Soomaaliland lagu weeqo maalinka Kismaayo tagina la ilaa Ismaaciil Cumar Gelle lagu caayo in uu radii la furo oo waxa weeyaan ahzaab xisbinimada u qalanta iyo dad sharafta maanta ay xisbinimada iyo gudoomiyenimada ahzaabta u qalanta inay soo baxaan ayaan madaxweynaha maanta joogana kula talinaynaa mar haddii ay xisbiyadii qaranku ku fashilmeen inay ka heshiiyaan arinta commissionka oo ah war doorashaha inoo qabteen waxa qura inoo furan doorasho gaari karnaa oo doorashadu waajib inagu tahay waa inuu xisbiyadii furaa horta mid baa yaab leh dadku waxay lahaayeen oo dadkooda rumaysan yihiin nimanka golayaasha labada gole ma doonayaan in doorasho dhacdo ee kursiga way xagsanayaan shacabka inta leegna xisbiyada hala furo waa u furteen taasi waxay muujinaysaa in diyaar u yihiin doorashooyinka عداتوا ولا شيء تاس ما هو عدات إن الله سحمني وإذا كسي دقري ديارتي دورشوي كي صعب كاو دعي حزب الله فوق أيا كاميرا كعي حد يا الله يرادر لوان سنخساو وحن بسوق بدورها وحكم بدري كابست حيراركا كو حيران سي دورشده لو سو دجين هذا حزبيه لو فرن إن ururada siyaasiga la furo xeer baa ka yaala 10 sanaba hal mar madaxweynuhuna sida hadalkiisa uu dhigay mar hadaynu heshiin weynay buuri ahsaabtii siyaasigiina ay ku dhiiran weyday inay doorasho dhacdo waxaanu dadka u furaynaa buuri u xanibnaan maayaane ururadii siyaasiga marka inta isweydiinta leh waxa weeyaan ururadii siyaasiga muddo sanadii 8 bilood ayaa ka dhama waqtigii la furi lahaa in la soo hormariyo sida madaxweynuhuna sheegay xeerashii ku tacalluqay xeerashaasi marka baarlamaanka ama golayaasha awoodda u la geeyana in wax ka bedeliyo kaabis lagu sameeyo la soo hormariyo ahsaabtii siyaasiga fadhiid noqday ahsaabtii siyaasiga ashqaas yeelatay ahsaabtii siyaasigeeniba ahdaaftii loo abuuray ee ahayd in qabyaalada lagaga gudbo iyagii dib qabyaalada ugu dhaqmaya marka horeyso horta waan ku hambalyeynaya in ururadii siyaasiga u furo dadkan waxaan u soo jeedinayaa inay waqti aan iska lumin maanta fursad siyaasi ah hortaala oo 10 sanaba hal mar soo mari doonta inay ururada waxa weeyaan isku kaashadaan urur nadiif la furo dadku maskaxdooda isku geeyaan siiba dadka dhalinyarada mutacallimiintii maskaxdooda tuujiyaan qabyaalada ay ka baxaan urur siyaasi ay furtaan si dalkani markaasi u gaadho ahsaab nadiif ah oo ku tartanta madaxtinimada dalka iyo golayaasha sharci dejinta ceeb dalka dul taalayna ahayd run ahaantii in ragga ahsaabta mucaaradka qaarkood hogaamiyay in maalin walba ku caayaan shirgudoonka golaha wakiilada inay yiraahdaan dalka bay isxambaar bay ku yimaadeen waxa weeyaan dadkayga la doortay nin isxambaar hogaaminaya ceebta dalka dul taalahayd in platformki xisbiyada qaranka lagu caayo dad gaara beela gaara lagu caayo dad gaara lagu maaga dad gaara lagu takooro waxay ahayd wax dhaqanada xun ee dalka yaal laakiin ilaahay baa maanta madaxweynaha dalka waafajiyay golayaasha sharci dejinta waxa la inay dedejiyo si dalku doorasho golaya deegaan u galo meeyra nadiif loo soo saaro golayaal deegaan nadiif u soo baxaan saddex xisbi qaranna uga soo dhaxbaxaan marka ururada siyaasiga ee la furo aad iyo aad buu madaxweynuhu runtii arintaasi geesinimada uu yeeshay waa geesinimo tii Axmed Siraaye 2012 lamida maanta ha isku diyaariyaan waxa weeye ururadii baa la furaya ay diyaariyaan nimankaas